Assalaamu calaykum. Ku soo dhawow channelkan. Haddaad xiisaynaysid barashada afka Jarmalka. Herzlich willkommen. Viel Spaß mit dem Lernen. Sidaan fiidiyoogii hore ku sheegay, waxaan hadda bilaabaynaa iibunkii koowaad. Waxaana uu ku saabsan yahay Tätigkeit im Alltag oo ah maalinkii qofku waxa uu sameeyo. Halkan waxaa lanaga rabaa in aan meelaha bannaan aan gelino verbiyada ku munaasabka ah. Magacyaalada jumlada ku jira. Pronomenka ayaan u jeedaa. Verbiyadan aan ka shaqayn doono gebi ahaanba waa wada presence. Marka hore tusaale ayaa layna siiyey oo waa fernsehen oo verbiga daawashada ah. Otto sieht fern. Maadaama uu Otto singular yahay oo qof qura yahay oo weliba nin ah, pronomenkiisuna uu yahay er. Verbigu waxa uu isku bedeli sieht fern. Hadda waxaan bilaabaynaa iibunkeeda. Marka hore waxaan halkan ku qoraynaa infinitiveka verbiga laufen oo waa laufen. Waxaa lana siiyey qof la dhaho ego oo waxaa lanaga rabaa in aan meesha bannaan gelino verbiga laufen presencekiisa siduu isku bedelo marka uu pronomenka ama magacuyaalka er uu yahay. Marka waa sidan ayuu noqonayaa. Verbigii waxa uu noqoni läuft. Egon läuft im Park. Ego waxa uu dhex socdaa baarkiga. Iibunka kale isna waa wäsche waschen, waa dhar dhaqid. Meesha hore waxaan gelinaynaa masdarka verbiga ee infinitiveka oo ah waschen. Max wäscht heute seine Wäsche. Max waxa uu maanta dhaqayaa dharkiisa ama marka uu verbigii waschen waxa uu isku bedeli wäscht. Iibunkeena kale waa trinken, waa cabitaan. Tusaalaha waa Bier trinken, Bier cabid. Max und Moritz trinken Bier. Halka waxa geli trinken, waayo waa laba qof oo waxa qaadanaya magacuyaalka sie. Iyaga marka verbigu waxa uu noqoni trinken. Iibunka kale isna waa Zeitung lesen. Meesha hore waxaan gelinaynaa masdarka verbiga infinitiveka oo ah lesen. Rudolf liest Zeitung. Rudolf wuxuu akhrinayaa Zeitung. Maadaama Rudolf uu yahay qof qura oo u yaala er, verbigii wuxuu isku bedelayaa liest. Wuxuu noqon liest. Iibunka xiga waa kochen oo ah karis. Meesha bannaan waxaan gelinaynaa masdarka verbiga infinitiveka oo ah kochen. Ernst kocht. Ernst wuu karinayaa. Maadaama uu Ernst yahay qof qura sidoo kale u yaala er, waxaa la gelini verbigii kochen wuxuu isku bedeli kocht. Iibunka xiga waa spülen oo ah weel maydhis. Meesha bannaan waxaan gelinaynaa masdarka verbiga infinitiveka oo spülen ah. Anton und Egon spülen Geschirr. Anton iyo Egon waxay maydhayaan weel. Maadaama ay yihiin laba qof, verbigu isma bedelayo oo sidiisii ayuu ku joogayaa. Kelmadda spülen waxaa loo isticmaalaa weel maydhis ama wixii la maydhayo ee weel ku saabsan. Verbigeena xiga waxaa weeyaan sprechen oo ah hadal. Sidoo kale waxaan gelinaynaa meesha bannaan ee infinitiveka verbiga sprechen. Manfred spricht mit einer Freundin. Manfred wuxuu la hadlayaa saaxiibadii. Manfred waa qof qura oo qaadanaya er. Saas darteed verbigii sprechen wuxuu isku bedelayaa spricht. Waxa ku xiga verbigii fahren oo ah wadis. Waxa meesha bannaan aan ku qoraynaa verbigii infinitiveka ahaa ee fahren. Wilhelm fährt mit seinem Sportauto. Wilhelm wuxuu wadaa gaadhigiisii isboortiga ahaa. Sportautogu waa gaadhiyaasha orodka badan ee lagu baratamo. Maadaama uu Wilhelm yahay qof qura, waxa
uu verbigii fahren isku bedelayaa fährt. Verbiga hören oo ah dhageysi. Meesha sare waxaan gelinaynaa masdarka verbiga infinitiveka oo ah hören dhageysigii. Rainer hört Musik. Rainer wuxuu dhageysanayaa music. Rainer waa qof qura, saas darteed kelmadii ahayd hören, verbigii hören ahaa wuxuu noqonayaa hört. Verbigeena ugu dambeeya oo ah schlafen oo ah seexasho. Waxa aan gelinaynaa meesha bannaan verbiga masdarkiisa infinitiveka oo ah schlafen. Ben schläft. Ben wuu hurdaa. maadaama uu ben qof qura yahay oo qaadanaya verbigii schlafen wuxuu isku bedelayaa schläft. gabagabadii si aad u hubisid inaad cashirka wada saxday iyo in kale halkaa kontaroole taabo, kadibna waxaa kuu soo bixi natiijada aad keentay. iminkana ku soo dhowaada feerbiyadii aan dhiganay sida ay isku bedelayaan marka magacuyaalka Jarmalka la isticmaalayo. magacuyaalda sida aniga, adiga, iyada, idinka, anaga, iyaga waana falka hadda dhacaya. fal kasta ood qoraysid waa inaad xarfihiisa wada yaraysid, haddii kale waxaa natiijadu wada noqoni khalad. tan iyo cashirkeena dambe, salaama. Ich spreche. Du sprichst. Sie es spricht. Wir sprechen. Ihr sprecht. Sie sprechen. Ich laufe, du läufst. Sie es läuft. Wir laufen, ihr lauft, sie laufen. Ich wasche, du wäschst. Sie es wäscht. Wir waschen, ihr wascht, sie waschen. Ich schlafe, du schläfst. Sie es schläft. Wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen. Ich spüle, du spülst. Sie es spült. Wir spülen, ihr spült, sie spülen. Ich lese, du liest. Sie es liest. Wir lesen, ihr lest, sie lesen. Ich trinke, du trinkst. Sie es trinkt. Wir trinken, ihr trinkt, sie trinken. Ich koche, du kochst. Sie es kocht. Wir kochen, ihr kocht, sie kochen. Ich fahre, du fährst. Sie es fährt. Wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Ich sehe fern, du siehst fern. Sie es sieht fern. Wir sehen fern, ihr seht fern, sie sehen fern.